FANAANINTA XIDIGAHA GEESKA ayaa hotel ku yaala BEERTA LIBAAXYADA magaalada Hargeysa arrimo sharafeed ugu sameeyay laba abwaan oo lagu kala magacaabo Cabdilaahi Xasan Ganay iyo Abees inta ay munaasabadaas socotay waxa laga jeediyay hadallo kala duwan ugu horeyntiina waxa halkaas ka hadlay abwaan Jeylaani oo halkaas ka jeediyay hadallo hordhaca waxaanu yiri labadan nin baan qadada u sameynay kooxda ku sharaftay maamulka kooxda ku sharfay gudoomiye ugu horeeyo iyo kooxda isu dhan wax weyn baa naga dhaxeeya isku abbaarnay isku ehel baanay cid walba naga isaga dhow dadkii wax ka dhaxeeyeen ayaanu nahay waxaan ku soo dhaweynayaa maamulka hadal badan oo dhan maayo labada abwaanba waan soo dhaweynaynaa magaaladoodii bay joogaan wadankoodii bay joogaan dadkoodii bay joogaan waxaan xagga uga qabsoomin oo fara badan oo sugaantooda ku saabsan intii ay halkan joogeen xaggan uga qabsanay dadka halka joogay afka ku hadla dadka halkan joogay afka ku hadla ka badan dadkoodii iyo dadka halka jooga ka fara badan oo waliba uu qabay bay la joogaan xidiguna dadkaas ay kamid yihiin isaguna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xidigaha geeska Xasan Dhuxulaab Saalax waxaanu yiri dadku waxa weeyaan toliyo xidid asxaab iyo macaariif waxaan ku faraxsanahay inaan labadoodaba si kale iyo laaba marna Hargeysa ugu soo dhaweeyay marna ugu sagootiyo waxa laga yaabaa Cabdilaahi soo dhaweyntiisii weeyaan haddana waa sagootintiisii oo dhawaan buu noqonaya abeesna uu soo degayba walaaba abwaano qiimo badan hadal dheer inaan halkan ka iraado ugu ma talagelin waxaan idinku soo dhaweynay dalkiinii waxaan idinku soo dhaweynay dadkiinii waxaan idinku soo dhaweynay suugaantiinii waxaan idinku soo dhaweynay codkiinii iyo codkayagii iyo midhihiinii iyo midhahayagii waa suugaan is soo dhaweysay siduu Jeylaani sheegay waxaan u mahad celinayaa xaruntan quruxda badan leh ee nugu xilanay dhirta iyo ubaxa beerta libaaxyada oo iyaguna kaalin weyn ka qaatay qada sharaftan baan u mahad celinayaa intii xidigaha ka soo qayb gashan u mahad celinayaa saxaafada kala duwan baan u mahad celinayaa hadaa maqasheen qalbi dadka caashiq dacalada ka soo galay idinka ku dari waa suugaanta Cabdilaahi xidigaha uu ku leeyahay jaw nabadgelyo baa kamida ma burburi heshiiskii baa kamida imaatinkiisan suugaantiisa ka soo horeysay oo xidiguhu dhamaan wada qaadaan heesta anuu Yaasmiin heestan hadaan u sameynayo wana qana xilligan sameynayay ciidan u dhiibayo nasiyay mar nuuray nalka maan ka daaray oo mursal curadka xidiguhu u qaado Cabdilaahi xaaskiisu sameeyay labadoodaba waan bogaadinaya waan hambalyeynaya dhankooda labada abwaan loo sameeyay hadhama sharafeedka ayaa iyaguna halkaas ka jeediyay hadallo mahadnaqa waxaana yiraahdeen runtii ma garanayo erayo ku filan ama kelmado ku filan amaba waxaan ku sifeeyo oo ku filan muxuu ahaayay sida quruxda badan ee noo soo dhaweyseen erayo ku filan oo ugu mahad celiyo ma garanayo runtii waxaan ku soo koobayaa aad iyo aad bad walaalayaal u mahadsantihiin runtii madaxa meel ka sareyso oo la taabtaa ma jiro in xidigihii geesku ay nagu soo dhaweeyaan maanta Hargeysa sharaf ka badan iyo qiimo ka badan oo aan heli kareynay ma jiro waxa la yiri milix isma milixaysa idigu fanaaniin caadi ah isku taqaanaan malaha laakiin anaga banaanka idiga joogno muxuu ahaayay adduunka waxa la idiga yaqaanaa taariikh nool markuu dawladii hore Soomaaliya burburtay fan ka dambeeyay mu jirin waxa la soo qaadi jiray heesihii hore uma fanaaniinta soo qaadi jireen maantana waxa laga soo qaadaa meel walba erayo cusub laxan cusub fanaan cusub oo wixii wata may hirgasheen hadayna xidigaha geesku soo bixin aabihii iyo hooyadii fanka cusub baatiin taariikh nool baatiin geeska Soomaaliya xitaa marka laga tago geeska Afrika oo dhan waa inaan mahad celino sidii goobta lagu yaqiinay waayo gobi markay ku soorto waad mahadsan tahay ayaa deeqda ta kale waxa weeyaan kooxda xidigaha geesku waxa weeyaan waa koox ma aha koox reer Hargeysa ma aha koox reer Burca waa koox marka ay ugu yar tahay la dhigi karo heer qaran Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa